vocabulary, marriage and relationships. Vocabulary waa new words oo kaleeto erayo cusub. Marriage guurka and relationships iyo wada xiriirada. Lesson 9. Lesson 9 cashirka sagaalaad ayaan kaga jirnaa. Lesson 9 cashirkeeni sagaalaad ayaan kaga jirnaa. Ereyga ugu horeeya waxaa ku xusan dowry ayaan leenahay. Dowry. Dowry wuxuu noqonayaa meher ayuu noqonayaa. Meherka gabadha ayuu noqonayaa. For example, tusaale waxaa dhihi kartaa did you pay the dowry of your wife? Did you pay the dowry of your wife? Ma bixisay meherka xaaska oo kaleeto ayaa dhihi kartaa. Okay, number 2 waxaa inoogu xusan elope ayaa inoogu xusan. Elope ayaan leenahay. Elope. Elope waxay noqonaysaa markaad gabar aad la baxsatid oo kaleeto aad la carartid oo kaleeto. Gabar markii la boobo oo kaleeto lala cararay lala baxsaday. Okay, saan sheegnay erayaheena waxay ku saabsan yihiin waxyaabaha xiriirka ama guurka erayaha la xiriira ay ku saabsan yihiin vocabulary-ga. Soo ereygan wuxuu noqonayaa markii qof dumar aad isla baxsataan aad isboobtaan isla carartaan oo kaleeto ayaa maxaa la dhahaa elope ayaa la dhahaa. Okay, tusaaloo kaleeto waxaa dhihi kartaa he eloped a girl. Wuxuu la baxsaday gabar ayaa dhihi kartaa. He eloped a girl. Wuxuu la baxsaday gabar ayaa dhihi kartaa. Okay, number 3. Number 3 waxaa ku xusan engaged ayaa ku xusan. Engaged. Engaged. Engaged waxaa waaye markii oo gabar aad doonatid oo kaleeto ama gabar doonan oo kaleeto. Course gabadhii waa la soo doontay waxaa lagula balamay guur oo kaleeto. So waxay noqonaysaa engaged ayuu noqonayaa ereygaasi. Engage waxaa weeyaan qofka dumarka ah markii la soo doono oo kaleeto oo guur uu u joogo kaleeto ayaa muxuu noqonayaa engaged ayuu noqonayaa. Okay, number 4 waxaa ku xusan engagement. Engagement waxay noqonaysaa doonashadii naftirkeeda ay noqonaysaa. Haddii aan kusoo noqono number 3 oo aan ka bixino examples ama tusaalooyin oo kaleeto waxay noqon kartaa oo kaleeto I and Rhoda are engaged ayaa dhihi kartaa. Aniyo Rhoda waan isku doonanahay oo kaleeto. Ama Rhoda is engaged. Rhoda way doonan tahay ayaa dhihi kartaa. Rhoda is engaged. Marka qof uu doonan yahay ayaa la qof dumar oo guur sugayo kaleeto. Number 4 waxaa ku xusan engagement ayaa ku xusan. Engagement waxay noqonaysaa doonashada laftigeeda ayay noqonaysaa oo qofka uu wax doonanayo kaleeto maxay noqonaysaa engagement ayaan leenahay. Okay, waxaa dhihi kartaa today is my engagement. Maanta waa doonashadeedu. Today is my engagement oo kaleeto. Hadaa qof dumar tahay oo kaleeto today is my engagement ayaa dhihi kartaa. Maanta oo kaleeto waa doonashadeeda. Okay, number 5 maxaa ku xusan fiancé ayaa ku xusan. Fiancé. So fiancé waxay noqonaysaa ninka ragga ah marka oo uu la balamay ama balan uu ku jiro oo guur ah yacni gabar uu guursan rabo kaleeto ayuu la balansan yahay. So already way is doonteen way isku joogaan way isku kaansanayaan. So maxay noqonaysaa fiancé ayaa noqonaysaa. So waxaa dhihi kartaa he is my fiancé ayaa dhihi kartaa. He is my fiancé. Aniga ayuu ii doonan yahay ama ayuu ii joogaa oo kaleeto. Okay, number 6 waxaa ku xusan ayadana fiancé ayaa ku xusan. Waa isku dhawaaqun labadan. Midkaan waa 2 e midkaan 1 e waaye. So fiancé ayay noqonaysaa. Fiancé maahan meeshaan. So dhibicda yar waxay ku tusaysaa in meesha ay ahaan loogu dhawaaqayo oo apostrophe-ga camal kor ka saaran ama kaleeto calaamada yar oo u muuqato inay tahay open quotation mark oo kaleeto u muuqato kor ka saaran. So waxaan leenahay fiancé ayay noqonaysaa. Fiancé waxay noqonaysaa qofka dumarka ah markuu asagana oo wiil u joogo oo kol hore isoo doonteen xasaabo iyo maxaa ka dhexeeya iyo seduction ama seducing ayaa ka dhexeeya shukaasi way isku doon yihiin marka way isku joogaan. So waxay noqonaysaa waxaa dhihi kartaa oo kaleeto she is my fiancé oo kaleeto ayaa dhihi kartaa. She is my fiancé. Gabadhaasi aniga ay ii doonan tahay. Number 7 waxaan ku haynaa honeymoon waxaa la dhahaa oo kaleeto. Honeymoon waxaa la dhahaa markii laba qof ay isguursadaan ay isku cusub yihiin oo 7 ay ku jiraan oo 7 bax ayaa badanaa loo adeegsadaa ereyga honeymoon ayaa la dhihi. Honeymoon. Tonight is our honeymoon ayaa dhihi kartaa. Caawa kaleeto waa 7 baxeena ama today is our honeymoon. 7 galkeena sorry 7 bax ayaan dhahay. So 7 gal ayaa noqonaysaa. Honeymoon ayaan leenahay. Honeymoon. Tonight is our honeymoon ayaa dhihi kartaa. Caawa waa 7 galkeena oo kaleeto.
soo ereyga ku xigo number 8 wuxuu noqonayaa inclandestine marriage. Inclandestine marriage. Destine meesha lagu dhaqaaqayo destine ayaan leenahay destine. soo inclandestine marriage waxay noqonaysaa guur oo khudbasiro ah. laba qof way isguursadeen laakiin si hoose ayaa laga yaabaa inay isguursadeen oo waalidkii dadkii asxaabtooda aan ogeyn, laakiin ayaga intay sheekh u tagaan oo qof uu meheriyo oo waxooda uu dhameeyo oo waa isguursteen oo isqabtaan kacayn u dhaha laga yaabaa. wayna isqabaan haddii la fiiriyo, laakiin guurkaas maxaa leeyahay qalad waay sida culimmada ay sheegaan. anaga kuley culimo manihin, laakiin luuqadda ingilishka ereygaas basaan ka barnaynaa. soo ereyga waxaan leenahay inclandestine marriage. Inclandestine marriage. Inclandestine marriage. soo clandestine marriage waa dhihi kartaa. Clandestine marriage inta waad ka saari kartaa. Inclandestine marriage waa dhihi kartaa. Clandestine marriage waa dhihi kartaa. waa khudbasiro camal. waxaa dhihi kartaa she is married in clandestine marriage. waxaa lagu guursaday guur khudbasiro ah ayaa dhihi kartaa. She is married an in clandestine marriage. ama waxaa dhihi kartaa her marriage guurkeeda is an in clandestine marriage. waa guur khudbasiro ayaa dhihi kartaa. okay, number 9 waxaa ku xusan junior wife ayaa ku xusan. number 9 waxaa ku xusan junior wife. so junior wife waxay noqonaysaa gabar markaa horaana u qabto kaleeto oo haddana gabar kale aad soo guursatay ayaa maxay noqonaysaa junior wife ayay noqonaysaa. Junior wife. so junior wife waxay noqonaysaa af soomaali waxay ku dhahaan oo kaleeto bahyar ay ku dhahaan. Junior wife waxay noqonaysaa bahyar ayay noqonaysaa. bahyar junior wife. so marka horaan islaan weyn u qabto kaleeto oo bahweyn u qabto kaleeto tu kale aa ka daba keento oo kaleeto marka waxay noqonaysaa junior wife ayaa lii. waa bahyar junior wife. so waxaa dhihi kartaa she is my junior wife. iyadu waa bahyarteyda. she is my junior wife. iyadu waa bahyarteyda. okay, number 10 waxaa ku xusan matrimony. Matrimony ereyga matrimony waxaan leenahay asaga macnihiisu wuxuu noqonayaa guur sharci ah. horaan waxaa usoo marnay clandestine marriage waxa la dhahayo ama inclandestine marriage guur khudbasiro oo aan sharci ahayn. so midkan wuxuu noqonayaa matrimony. Matrimony waa guur sharci ah oo laba qof oo la ogyahay guurkooda oo rabbi raali uu ka yahay isguursadaan oo waalidkii wax kasta ay ogyihiin ayaa maxaa la dhahaa matrimony ayaa la dhahaa. Matrimony. Their marriage was a matrimonial marriage ayaa dhihi kartaa. Matrimonial marriage wuxuu ahaa guur sharci ah. so their marriage was a matrimonial marriage. Matrimonial marriage wuxuu ahaa guur sharci ah ayaad leedahay. okay, number 11 sorry, number 11 waxaa noogu xusan misogynist. number 11 waxaa noogu xusan misogynist. Misogynist waxaa weeyaan qof oo nin rag ah oo dumarka nacban. dumar dhan lama tusi karo, ma rabo haasaabo lama sameeyo, mushkaas u guursado inuu la istaagay ma rabo, inuu la hadlo ma rabo, wuu nacban yahay. so waxaa lii qofkaasoo kaleeto misogynist ayaa lii. misogynist. so waxaa dhihi kartaa he is a misogynist. isaga waa qof necban dumarka. number 12 waxaa ku xusan mistress ayaa ku xusan. mistress. mistress waxaan leenahay qof dumar oo meel ka taliso oo xil weyn hayso awood oo kaleeto way noqon kartaa mistress. ama waxay noqon kartaa oo kaleeto naag oo sir ah. qof oo nin rag ah naag uu qabaa haddana tan si hoosaada oo la xiriiraa oo guur xataa kama dhexeeyo khudbasiro xataa inuu ku qabinaa laga yaabaa, laakiinse oo hooshooda iyo waxooda ay ka wataan ayaa maxay noqonaysaa mistress ayay noqonaysaa. so mistress waa guur hoosaad ah qof uu ka dhexeeyo kaleeto. waxaa dhihi kartaa she is my mistress. iyada waa gabadh aan hoos kala xiriira ama hoos aan ka qabaya. waxaa dhihi kartaa ama si qarsoodi ahaan aan hoos ugala xiriir ayaa dhihi kartaa. so ereyga mistress ayuu noqonayaa. mistress maxaa waaye xaas oo qarsoodi adi aa qabtid ama naag oo sir adi aa qabtid oo kaleeto ay noqonaysaa oo si hoosaade oo xataa aanan ahayn clandestine marriage aan ahayn xataa guur oo khudbasiro aan ahayn oo kasii liitaa. okay, number 13 waxaa ku xusan monogamist. monogamist wuxuu noqonayaa qof hal xaasle ah. nin hal xaas qabo bas ayaa wuxuu noqonayaa monogamist. waxaa dhihi kartaa I am a monogamist. waxaan ahay hal xaasle. my brother is a monogamist ayaa dhihi kartaa. walaalkayga waa hal xaasle. okay, number 14 waxaa ku xusan polygamy. polygamy. polygamy waxay noqonaysaa xaas badan ayay noqonaysaa polygamy. marka xaaska badan la guursanaya maxaa la
polygamy. Polygamy waa xaas badan noqonaysaa. Marrying four wives is a polygamy aa dhihi kartaa. Guursada la guursanayo 4 xaas waa polygamy. Micnaha xaasas badan guurkooda la guursanaya ayaa dhihi kartaa. Okay, number 15 waxaa ku xusan polygamist. Polygamist wuxuu noqonayaa qof xaasas badan qabo oo kaleeto. 2, 3, 4 oo kaleeto qof markuu qabo. Waxaa dhihi kartaa oo kaleeto my father is a polygamist. My father is a polygamist because he has 3 wives aa dhihi kartaa. Aabahaygu wuu xaasas badan yahay maxaa yeelay 3 islaan ayuu qabaa. My father is a polygamist. Aabahayga wuu xaasla badan yahay because maxaa yeelay he has 3 wives wuxuu leeyahay 3 xaas ayuu leeyahay. So polygamist waa markaa xaasas badan ay qabtid ayay noqonaysaa. Polygamist ayaa la dhihi ereygaasi.